shirkan loogu magac daray Somatalis ayaa qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland uga furmay magaalada Burco. shirkani waxaa ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka kala socda labada beelood waxaana diiradda lagu saarayay xasilinta nabadda iyo horumarinta deegaanada laba beelood ay wada degaan. Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali iyo Suldaan Maxamuud Guuleed Mire oo ugu horeyntiiba shirkaasi furay ayaa sheegay muddada shirku soconayo in gebi ahaanba shirkaasi ay ka madax bannaan tahay siyaasaddu. marka uu horeysa shirkan dhawaaqii hore aan dhawaaqayna waa maqlaysay hadda waxaan leeyahay shirkan shir siyaasadeed waa shir dhaqan maba jireen ninkii wada guntiga ku sitay siyaasadu halkaaga iskaga hayso shirkaasu shir magac reeba oo Soomaaliland wax tara inuu noqdo إننا تظلم هدية أين نقوله شركا وكا سلطان كتلمامي وتشيدده يوحى إنه كبينا وحوي وإن إنه كأبو الروح أو كسم إنه نرشي اللي دبقوا صنع إنه كأبو الروح شوي ولا اللمو اللمو wada noolaansho wax wada yeelasho iskaashi. Suldaan Maxamed Cabdiqaadir iyo Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar oo dhankooda ka hadlay shirka ayaa ka mahadnaqay qabanqaabada iyo habka shirku u furmay waxaana ay sheegeen in qodobo muhiim ah lagu gorfayn doono intuu socdo shirkaasi. shirkan maanta aan wali la tagin shirka weyn manayman hore ugu dhicin وانا شير لو باهنا وحين اللي غوض هادلنا ثلاثة وحيت إلا قاته وصد عاد الله نغضو وضع الدواء وحقوضنا وضدك أرن ككده حيا تني سياسي قلنا هاي بدنا قبل كده حيا ديان شركة اللي يتجاهي سيو وحكيرة تعبته مركز رأيت الله يبقى مهدان كذب waxaan mahad ka celinayaa waad iyo aad uga mahad celinayaa beelahan habar jeclo ee shirka soo qaban qaabiyay quruxda badan leh ee gogoshan iyo miisaankan iyo milgahan maamuuskana maxay keenay wax waliba waxbay ka horeeyaan siyaasadda marka salaadiin ahaan aanu leenahay yaa siyaasad la gelin oo maxay lagu sii tafin ujeedadu waxa weeye bal horta marka hore labadan beelood ee ballaaran ee dhulka badan wada degan in iyagu ay noqdaan oo nabadeedaan oo xurgufta yar iyo wixii meelaha ku jira horta ay ka bogsadaan. gabagabadiina shirka ayaa lagaga dhawaaqay guddi ka kooban 7 xubnood oo hagaya ajandayaasha shirka. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.